wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Marwo Yurub Abiib Cabdi munaasabadan ay u sameysay kooxaha hidaha iyo dhaqanka ee Dalmarban iyo kooxda kubadda cagta Isbaanishka ee heerka labaad oo ka tirsan degmada Koob iyo Soddon Kamey ayaa munaasabadaasi waxay ka qabsoontay magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay kooxaha ay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland ay ku maamustay casho sharafta waxaana uu go'aankaasi ka hadlay mas'uuliyiin ku hadlayay magacyada kooxdaasi oo kala Cumar Aadan موليد سياد محمود عبد القادر عمر أبتدون مصطفى أحمد عبده يو محمد عبد يوسف وحناي مهدنق بلارن أوتشيدين وزير كحيان كوزارة حنانة حولها يهرمرنت كلوميسيك السومالي وحنا كان وجا مهدنقنا هذا ما يكون واحد إسبانيشكا وسيركا يوروب أبيب عبدي وسوق من قابسي سيشرف لنا وسوق من قابسي كلن كان غالقا تاسو إنه إن مدعبة كسوجني haddaan noo kooxda Isbaanishka anigoo koolaya dhamaan afka kooxda Isbaanishka waxaan halkan leeyahay aad iyo aad baad maasantay mudane wasiir mahadnaqaya waxa weeyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Marwo Yurub Abiib Cabdi oo runtii waxa weeyaan madashani iyadu waxa weeyaan qabaqabadeeda lahayd marka saddexaadna waxaan u mahadnaqayaa tiimkan aan ka tirsanay waxa weeyaan Isbaanishka runtii mahadnaq balaaran ee wasiirka u jeedinaya waxa weeyaan halgankii iyo dadaalkii dheeraa ee waxa weeyaan waqtigii ololaha aanu soo wada qaadanay ورنتي قيب كميدا عاو وحوين أبالكيدي أي عليسي رنتي وزير كاديات بانو كم هادنا قياه وحنانو بلان قادية وحوين كتيمهان وحوين هاوليها نقول قبناي قار كلوكا وين هداد نوقبها تلفتر كذا دي أربعة نكون هاي وحلية هاي يوروبنا وحلية يعني وضع شقيتها إنه سوى ذا قادناي ما هالكي وجودن بيسمينا تشوجين كل برنامج بين سوى ودني أنت عاد حكومة كميت هي أنت كلبا يعني وانا كل شقينا كوحهان iyo dhalinyar ahaan baan kula shaqeynaynaa mar walba garabkaaga aanu taaganay sida adigu garabkayga aad noo taagneed oo aad noogu mahadnaqday xafladana noogu soo casuuntay runtii madashan quruxda badan waanu kaaga mahadcelinaa sida fiican noogu soo casuuntay madashan waxaad ku soo casuuntay mid kamid ah kooxaha ugu facaweyn degmooyinka Axmed Dhagax iyo Koob iyo Soddon Kamey kooxda Isbaanishka kooxdan oo asaaskeedu ay ka soo wareegtay muddo 10 sano iyo waxoogaaya waa koox runtii garab taagan ku garab taagan wasiir imika oon aan ahayn oo waxa weeyaan doorashadii aad gashay xildhibaannimadii 2012 waxay ahaayeen dhalinyaradii haldoorka ahayd ee dhiigga ku shubtay runtii in badanna waxa weeyaan imikana ku garab taagan waa dhalinyar runtii karti badan dadaal badan waa dhalinyar runtii ay ka caagan yihiin balwadaha iyo waxyaabo badan oo dhalinyarada dib u dhiga runtii waxaan bogaadin iyo hambaliyaan u dirayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Marwo Yurub Abiib Cabdi oo runtii caawa madashan ku casuuntay dhalinyaradii sportska ee halganka u soo galay xusbiga waxa weeye runtii maxaafidka ah ee kulmiye waagi ololaha markastana waxa weeye runtii ku suntan dhalinyaro waxa weeye runtii dhiirigelin iyo waxa weeye runtii in walibana loo abaal celiyo waxa weeye runtii qaranka uga baahan sidoo kale dhalinyartu waxa weeyaan eegana aad baan ugu mahad celinayaa haday noqoto Isbaanishka oo Serbida waxa weeye Soomaaliland Marwo Yurub Abiib Cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland ayaa iyaduna dhankeeda waxay isdul taagtay dulucda munaasabadan ay u sameysay kooxaha hidaha iyo dhaqanka ee Dalmarban iyo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo waxaanu kulankeenan wuxuu daaran yahay inaynu imika muddo kala maqnayn inkastoo maalin walba ay saragno wada joogno haddana waxaan aad iyo aad aan u doorbiday inaan mar kooxdan runtii Isbaanishka qalbigayga ka baxaynin ololihii markaan ku jiray xasuus badan aan ka hayo oo qalbigayga aad ugu jirta haday tahay campaign markaan ku jirnay iskarabtaagoodii haday tahay habeenkii campaign leenay waqtigii ay magaalada siraadi jireen haday tahay waxyaabo badan baan ugu mahad celinayaa ilaahay baa mahad leh oo run ahaantii aanan dhalinyaro lahana aanan arag intii guddigii campaign-ka Hargeysa aan ku jiray run ahaantii inkastoo dhalinyaradeenu dad aad u wada sharaf badan ay yihiin haddana dhalinyaradan Isbaanishku aniga qalbigayga kama baxaan aad iyo aad baan u jecelahay waa dhalinyaro run ahaantii qiimo badan ololihii aan ku xasuusto haddaan eego shaqadoodii oo heerkii ugu sareeyay Koob iyo Soddon Kamey ka ciyaarayeen haddaan eego ololaha anagoon xitaa u dirin 4 galabnimo sidii xaafadda u siraadayeen haddaan eego iimaan qabkoodii ay nagula shaqeeyeen run ahaantii aad iyo aad abaal badan ayaan u hayaa dadkan waxa weeyaan qofkan ummadiisa dadka islaamka aanu mahad celin ilaahayna uma mahad celin diinta islaamka sheegaysa waxaan anigu jecelahay mar walba inaad hareerahayga joogtaan waxaan jecelahay inaad caruurtayda amba walaalahayga igu dhadhow eega yareer inaad noqotaan
aad iyo aad baan idinku han weynahay mana noqonayso xafladii ugu horeysay in iskugu nimi ha ahaato laakiin ma noqonayso tii ugu dambeysay in iskugu nimi wax kasta oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aan ka tirsanahay laga heli karo awoodeeda oo u baahan tihiin na waxaan idinka ballan qaadaynaa isla kiin garab taaga hadii la yiraahdo